waan idin salaamay asxaabteyda. Waa walaasheen Raxma Dheeman kusoo dhawaada YouTube channelkeena. Maanta mawduucan ka hadlayna hadduu Alla raali ka noqdo waxa uu noqonayaa hooyada ma go'aansan kartaa qaliin? Haddii go'aansato maxaa ka dhalan karo ama caqabado maxay kala kulmi kartaa gadaal dambe ayaan isdul taagana hadduu Alla raali ka noqdo. Qaliinka inta badan waxaa go'aamiya dhakhtarka, waayo waa xaalad kama dambeys ah markii la waayo xal kale. Markii hooyada caadi u dhali weyso ama xaalad emergency ay imaado ayuu dhakhtarka qaadanaya go'aan ah in hooyada iyo uurjiifka la kala badbaadiyo. Balse mararka qaar waxaa dhacdo in hooyada ay door bito oo ay go'aansato in qaliin lagu sameeyo. Ugu weyn ama sababta ugu muhiimsan oo hooyooyinka inta badan ay u dalbadaan qaliinka waxay tahay iyagoo ka cararaya ama diidaya xanuunka foosha. Ay door bidaan in ay ku dhalaan qaab qaliin ah si ay hooyada uga gudubto xanuunka foosha. Qaliinka noocan ee hooyada ay dooranayso wuxuu aad ugu badan yahay wadamada qurbaha, laakiin wadankeena Soomaaliya kuma badno. Faa'iidooyinka uu leeyahay in hooyada ay qaliin ku dhasho ama ayadoo ay doorato qaliinka waxaa ka mid ah inaysan hooyada wax xanuuna aysan dareemin, waayo markii qaliinka la yimaado hooyada waa la suuxinaya kadib cunuga ayaa laga soo saaraya oo fool iyo xanuun iyo waxaasoo idin ma mareyso. Faa'iidooyinkiisa waxaa kaloo ka mid ah uurjiifka wuxuu dhalanayaa asoo fariish ah oo aadan ka walwaleynin oksijiinka inay ku yaraato ama biyo ku dabaalanaya inay yaraadaan. Si normal ah ayuu dhalanayaa. Waxaa dhici karta markuu dhasho inuusan u baahanin oksijiin in lagu xiro iyo wixii lamid ah. Dhinaca kale haddii aan eegno dhibaatooyin ama waxyaabo caqabado ma leeyahay oo problem ma leeyahay oo hooyada ay la kulmayso hadhow. Saameyn ama caqabado waa uu leeyahay. Waxaan kusoo koobayaa dhowr qodob hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Waxaa kow ah bogsashada hooyada ama dhibaatooyinkiisa waxaa ugu horeeyo bogsashada hooyada inay waqti qaadato, waayo markay hooyada caadi u dhasho 7 maalmood kadib waxaa dhici karta inay ka buudo oo ay ka bogsato xanuunkii iyo wixii idil. Laakiin markay qaliin ku dhasho waqti dheer ayay qaadanaysaa inay soo bogsato oo ay soo kabsato. Caqabadiisa labaad waxay tahay hooyada markay caadi u dhasho waxaa dhici karta inay muddo yar ay isbitaalka joogto kadibna la fasaxo ayadoo caafimaad qabto. Laakiin markii hooyada qaliin ay ku dhasho waxaa la rabaa inay maalmo ay joogto isbitaalka si daawooyin loo siiyo ayadana ay normal xoogaa ay u soo noqoto. Saameynta saddexaad ama caqabad saddexaad uu leeyahay markay hooyada ay doorato qaliinka waxa uu yahay in saameyn uu ku yeesho hadhow caruurta kale uu Ilaahay ku irsaaqo, waayo historiga ama taariikhda ayuu ugu jiraa oo mar walba oo dhakhtarka wareysi la yeelanayo waxa uu weydiinayaa hore qaliin ma u soo martay. Waxay ku noqonaysaa caqabad oo waxaa dhici karta ilmaha ka dambeeyo inay qaliinka ay marto. Tala ahaan waxay dhakhaatiirta inta badan ku talinayaan hooyada inta ay ka baaqsan karto qaliin in aysan ku degdegin oo aysan ku fududaanin. Laakiin haddii xal kale la waayo oo ay noqoto in hooyada iyo uurjiifka la kala badbaadiyo, dhakhtarkana uu go'aamiyo qaliinkaas, waxaa wanaagsan in la sameeyo. Balse hooyada ayadoo xanuun ka cararayso xanuunka foosha inay qaliin doorato inta badan dhakhaatiirta kuma talinayaan oo waa laga wanaagsan yahay. Sababtay dhakhaatiirta ugu talinayaan inaysan hooyada ku degdegin qaliinka waxay tahay xanuunka foosha muddo yar oo kooban ayuu soconayaa kadibna hooyada way ka boodaysaa oo uurjiifka hadday dhasho xanuunka way ilaawaysaa. Waxaa wanaagsan hooyada inay sabarto oo ay u adkaysato xanuunka yarka ah intii gadaal dambe uu qaliinkaas saameyn ku yeelan lahaa. Balse haddii go'aanka qaliinka uu ka yimaado dhinaca dhakhtarka uu u arko inay hooyada xal kale aysan lahayn ilaa in qaliin ay marto maahane, waxaa wanaagsan inay hooyada ay aqbasho markaas, waayo waa xal kama dambeys ah oo lagu kala badbaadinayo hooyada iyo uurjiifka. Waxaan la weydiisanayaa in hooyooyinka uur kale uu Ilaahay u fududeeyo oo si dhib la'aan ah uu Ilaahay ugu fududeeyo. Kuwii dhalay ama qaliin ku dhalayna uu Ilaahay recovery caafimaad degdeg ah uu siiyo. Waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. Fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabteena.